نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، وحن كل حجرني قصة آدم عليه السلام، خاصة المبحث الأول ذكر آيات في خلق آدم. وحن كصو بحني درسي كواد سورة البقرة، كي لبادنا سورة أعراف، كي صدحاد سورة حجري، كي أفراد سورة إسراء، كي شناد أيانو هلكان كجلينا والدرس الخامس. وحاونا أي الله سبحانه وتعالى وكجهد لي في سورة طه أي يدنا ساسو كلا كتفصيلية الله سبحانه وتعالى أو كان قصدي نبي الله آدم markii la abuuray iyo qaabkii jannada looga soo saaray. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yiri walaqad cahidnaa ilaa aadama fanasiya walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma. walaqad xaqiiqiya cahidnaa waa la ballannay ilaa aadama aadam baan la ballannay min qablu hadda ka hor, fanasiya waa ilaawey, walam najid lahu cazma go-aan adagna kama aanu helin. ay macnuhu wuxuu u dhacayaa nabiyullaahi aadam cahdiga lala ballamay waxa weeye geedii la yiri walaa taqraba haadihi shajara. markii la yiri jannadaa dega oo suuratu lbaqara iyo suuratu acraaf iyo kulli aanu kaga soo hadalnay oo nagu yiri ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بلانت إيا عهدك للقى لي وحوية والنهيك لغا نهي جيد كائنو عنو مركا ولم نجد فنسيا وإلاوي نسيان كعلمات وحيرادين أي معناها دم خلطك أو كدعي أو جيدك أو عني وهي نسيانك اللغة العربية tarkina waa la yidhahdaa, wuu ka tegi. macnaha wixii laga nahiyey kuma uuna socon ee wuu khilaafay oo waxa uu ku dhacay waxa weeye wixii ka soo horjeeday oo khada ahaa. marka khada buu ku dhacay nabiyullaahi aadam calayhi salaam, waana asbaab oo waxa weeye awalba hore baa la inoogu soo sheegay oo allah uu suuratul baqara aynu ku soo bilownay وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. marka mar walba dhulka loo soo waday, laakiin asbaab ilaahay wax walba sabab ayuu u yeelaa. saadaradeed marka aadam sababtii waxay noqotay inuu ilaaway maadaama shaydaan baa waswaasiyey, markaasuu waxa weeye ku dhacay nahyigii. cazmi iyo go-aan adag ma uu yeelan, waayo cazmigu waa go-aanka adag inuu qofku wixii lagula ballamay ku socdo oo uunan khilaafin ayaa la rabaa. marka allah subxaanahu wa tacaala saasuu ina yidhi walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa aba. waxaanu niri buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala ay اذكر أيها الرسول إذ وقت أن قلنا كنر للملائكة ملائكتي اسجدوا لآدم آدم السجود. سورة البقرة لينو عديي مركو أسمادي ورن أشيغي وملائكتو قرن وايين واتي لين أسجود مركا ملائكتي ورن سجودي إلا إبليس أبا. هل كان وحال إلى أبا كلية سورة البقرة لكن وحن نقصوا مرني أبا واستكبر وكان من الكافرين. marka meelaha qaarkoodna ibaagaba lama sheegee oo waxa weeye markii la yiri u sujuud buu yiri asjudu liman khalaqta diina, ma waxaan u sujuudayaa mid laga abuuray waxa weeye dhoobo.
marka macnaho dhan aayadaha marka la isku fasira macnaheedu waxa weeye abaa wastakbara fi suurati saadna waxa ku imaan doonta istakbara illa ibliisa istakbara wa kana min alkafirin idan marka istakbara waa gaalnimo abaa laftigeedu waa diidmadii gaalnimadii kufru iibaa baa la yidhahdaa iyo kufru istikbaari kibir iyo isla weynan inuu qofku ku dhaco marka waxoo dhanba waxay u dhacaysaa abaa wastakbara waana diiday waana iskala weynaaday inuu u sujuudo nabiyullaahi aadam calayhi salaam waana xaqiray oo wuxuu yidhi anaa ka fiican faqulnaa yaa aadamu waxaanu ku niri markaa aadam oo u caddaynay cadaawadda shaydaan inoo qabo ayuu allah inoo sheegaya oo inoogu caddaynaya aadamna waa loo caddeeyey faqulnaa waxaanu ku niri yaa aadamu ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa aadamow kaasi waa cadow buu kuu yahay waa ibliis adiga iyo xaaskaagaba cadow buu idiin yahay yuunan jannada idaka saarin hadduu jannada idaka saaro oo adduunka aad tagtaan markaa fatashqaa waad dhibtoonaysaa markaa waayo shaqaa lagaa rabaa qofku waa dhibtoonaya waxay ku fasireen culimmadu yidhaahdeen ay jannada cun baa la yidhi meeshaad doontid ka cun isagu beeran mayo oo soo guran mayo oo karsan mayo wax walba iyagoo u diyaar u helaya laakiin adduunka markii la keenay beertii waa inuu beertaa mirihii waa inuu gurtaa markay soo baxaan waa inuu waxa weeye isagii diyaarsadaa waa inuu dabkii shitaa waa inuu karsadaa marka waa dhib iyo mashaqa ku jirta marka nolosha adduunyadu waa takalluf iyo mashaqa iyo dhib baa la maraya laakiin jannada waxaa ma taalo qofkii meeshaasuu iska joogaa wixii uu baahdaba waa u imaanaya oo waxa way loo keenaya marka dhib la'aan wey jannadu waa dhib la'aan adduunkana waa dhib iyo mashaqo wa fatashqa marka iska ilaali baa la yidhi hadduu jannada kaa saaro waa looga digi hadduu jannada kaa saara baa layidhi waad dhibtoonaysaa ogow markaasaa loo caddeeyey jannada wanaaggu ku haystay inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa 4 arrimood oo adduunka dhibaato ah oo qofku ku dhibtoodo ayaa loo tilmaamay oo waxa weeye jannada dhexdeeda aan oolin laakiin adduunka haddaad timaadid 4taa dhibba waad mari doontaa laakiin haddii aad jannada joogtid oo jannada ku jirtid 4taa dhibaato kuma gaarayso inna laka anlaa tajuuca fiiha waxaad ku leedahay inaadan gaajoon aljuuc waa gaajada wey anlaa tajuuca fiiha inaadan gaajoon walaa tacraa inaadan arradinoo qaawanaan oodan dhar u baahan ayaad leedahay wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa laa tadma'u inaadan haraadin oo oon ku qaban walaa tadxaa qorraxna aadan arag oo jirkaagu qorrax taaban wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah marka uu fasiraya aayadahaas inna laka labalaba isaga soo horjeedaan oo muqaabil isku yihiin inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa waxa uu yidhi qofku markuu intuu gaajoodo uurkuu ka gubanaya dhibaatuu dareemaya juucu waa dulli buu yidhi waa dulli filbaatin buu yidhi labadaanba dulli baa ka soo baxaya gaajada iyo qaawanaantaba waa nooc min adulli weeye qofku markuu gaajoodo waa dullaysan yahay daraaddeed buu dadkii baryayaayo dulli baa ku dhacaya marka waa adullu filbaatin weeye marka waa dulli ku dhacaya uurka iyo caloosha ku gubanaysa oo kugu khasbaysa markaa wax aadan naftaada awal u quurteen hadduu qofku qaawanaado dhar la'aan ku dhacdana ceebtiisii baa bannaanka u soo baxaysa dullun fi daahir weeye jirkiisii iyo cawradiisii baa muuqanaysa waxa weeye waa dulloobayaa marka labadaa dulliba waa ka badbaadaysaa wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa waxa uu yidhi ibnu kathiir addama oonka waa filbaatin buu yidhi oo waa kulayl gubasho calooshu ku gubanaysa weeye oo oonku waa kulayl iyo hur baa ka soo baxaya waa gubanaysa qorraxdana markuu qofku meeluu ka harsada waayo waxuu isaga dhigana waayo jirkii dushuu ka gubanaya
marka labadaas oo midna dulli yahay midna kulayl yahay oo dulligiina gudahana ku dhacayo bannaankana ku dhacayo kulaylkii uurkana ku dhacayo korka jirkana ku dhacayo afartaa arrimoodba jannada ma taalo ma gaajoonaysid ma aradaysid oo dhar la-aan kugu dhici mayso ma haraadaysid oo ma gubanaysid oo calooshaadu guban mayso jirkaaguna qorax arki mayo walaa tadxaa ay qoraxda kulayl iyo markay qoraxdu kulushahay arki maysidoo raaxa ayaad ku nooshahay wey walaa tadxaa intaasaa lagula ballamay nabiyullaahi aadam oo waxa la jannadaa ku raaxayso horaana la inoogu soo sheegay in la yidhi jannadaa ku raaxayso idan ibliis marka shaqadiisii buu qabsaday marka fawaswasa ilayhi shaytaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulki laa yabla fawaswasa wuu waswaasiyey waswaaska waxaa la yidhaahdaa saynu hadda ka horna soo marnay waa alkalaamu alkhafiy waa asawtu alkhafiyi waa wax qarsoon oo qofka qalbigiisa ku soo ridayo oo yafhamuhu marka uu qofkii fahmayo oo qalbigiisa waa xadiithu nafsi baa la yidhaahdaa waxa naftaada ku soo dhaca oo qalbigaaga iyo naftaada ku sheekaystaan ayaa la yidhahdaa waswaaska marka fawaswasa ilayhi shaytaan hadda halkan waxaa la yidhi ilayhi oo aadam keliya damiirkii loo tiiriyey waswasadii laakiin acraaf waxaynu ku soo marnay fawaswasa lahuma labadoodiiba wuu waswaasiyey liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw-aatihima sababtuu waswaasinaya maxayd inuu waxa weye cawradooda tuso si ay markaa waxa weye cawradoodii u arkaan uguna dhacaan nahyigan laga celiyey marka fawaswasa ilayhi shaytaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamow ma ku tusiyaa buu yidhi calaa shajarati alkhuldi geedkii nolosha oo aan la dhimanaynin ay man akala laa yamuutu abadan qofka cunaa weligii ma dhimanayo oo waxa weye geed lagu noolaado weeye ma rabtaa marka inaada weligaa dhiman geedkaasaad cunaysaa haddii kale waa dhimanaysa wa mulkin laa yabla iyo boqortooyo aan weligeed baaba'aynin oo waxa weye aad haysanaysid fii suurati acraaf iyana waxaynu ku soo marnay oo waxa weeye inuu dhaar isku xaabiyey wa qaala maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi shajara ilaa an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin marka inaad noqotaan laba malag oo aan weligood dhimanaynin ama aad noqotaan waxa weeye inaad laba malag noqotaan ama kuwo aad noqotaan aan weligood dhimanaynin halkaana wuxuu yidhi waa mulkin laa yabla bilow-aadmigu waa jecel yahay boqortooyada inuu weligii noolaadana waa jecel yahay oo waa laba bilow-aadmiga ku abuuran oo nebigu xadiis buu ku tilmaamay yahramu ibnu aadam qofkii bilow-aadmiga waa gaboobayaa waxaana shaab ahaanaya wayashabu fiihi ithnaani laba arrimood dhallinyaray ahaanayaanoo dhiman mayaan waxa weeye alxirsu inuu ku dadaalo cala almaal inuu maalka ku dadaalo walbaqaa iyo nolol inuusan dhiman oo waxa weye weligii inuu noolaaduu jeclaanaya waxaa maalin walba dhakhaatiirta loogu ordaya in la noolaadaa la jecelyahay idan laakiin ma la dhaafayaa waktigeedii maya laakiin waa bannaan tahay in dhakhaatiirta loo tago la isdaweeyo laakiin qofku waktigiisii ma dhaafayo wey oo waktiga ilaah ugu talagalay buu dhimanaya marka waxuu yidhi wa mulkin laa yablaa boqortooyo aan weligeed dhammaanaynin ma ku tusaa fawaswasa ilayhi shaydaanu qaala yaa aadam hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa weligeed aan dhammaanayn faakalaa minhaa way cuneen aadam iyo xaawi geedkii bay cuneen faakalaa minhaa fabadat lahumaa saw-aatuhumaa waxaa u muuqatay cawradoodii saw-a waa cawrada weeye cawrada ayaa saw-a la yidhahdaa waxaana loogu bixiyey baa la yidhi lianna qofka haddii cawradiisu faydanto waa uu dhibsanayaa oo ma rabo tasuu macnaha way xumaynaysaa qofkii isagii wuu ka xumaanaya in cawradiisa bannaanka taallo marka saw-aatimaa ay cawraatimaa loo jeeda cawradaa loo jeedaa faakalaa minha fabadad lahumaa saw-aatuhumaa wadafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi ljanna
mar alla markay geedkii cuneen ayaa waxa weeye cawradoodii u muuqata markaasay fadafiqa waxay gudagaleen ay sharaca waa afcaalu shuruuc waxay gudagaleen inay ku dhadhajinayaan geedihii caleentii geedka jannada geedaha jannada caleen inta ka goostaan inuu qof walba cawradiisa saarayo oo ku asturayo ayay gudagaleen waka marka mar alla markay geedkii cuneen فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وإنك سمرنا إعراف إذا مر الله مركي جيتك عنين أيا أسترادي إلهي السيي فيدنتي عورضو دين ربناك أصوب حضي مركاسي عيبوبين ووحا قتشلين ووحا قفوا البقودة قلي إنو علين انتو قوستو إلا دار كلميشي ما يالو إلهي بأول أستري caleentii inuu ka goosto geedaha oo qof walba cawradiisa ku qariyo ayuu waxa uu qof walba ku dadaal waka faakala minha fabadat lahumma sawatuhuma fadafiqa waxay guda galeen manka yakhsifaan in isku dhadhajinayaan oo waxa weey ay ku dhadhajinayaan min waraqil janna oo waxa weey ay dusha iska saarayaan min waraqil janna allah waxa uu yiri وعسى آدم ربه فغوى آدم ربي سو عاسيي واي عسيانكو وحويه ما قالوا بن لكن نهيجي وحي لغا نهيي بو كدعي او خلافي وايو وحول بأمر نهي ويه شريعته وحنا والغو أمر وحنا والغا نهي لبدودي بينا إلى السد بالا رباه وهذا وحي لغو أمرين كتغي وحي لغا نهينا آدم كدعين marka ibliis amar baa lagu imtixaamay waa uu ku fidnoobay oo ku gaaloobay aadamna nahyi baa lagu imtixaamay oo ku dhacay oo khaladkii uu ku dhacay laakiin ma gaaloobin ee isla markiiba waa toobad keenay waayo isaga kibir uma geynin waxay ku kala duwan yihiin ibliis kibir baa u geeyo qarsanay aadamna waxa weeye waa naf iyo shaydaan baa ka tambadiyay isla markiiba waa soo noqdo ilaahay buu toobad keenay waataynu suuratul baqara iyo waxa weeye kulli ku soo marnay iyo suuratul a'raaf iyo waxa weeye inuu toobad keenay rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ilaahay buu tadarrucay oo rabbi uu bariyay ilaahay baa ka toobad aqbalay marka allah baa inoo cadeynaya halkan marka inuu ka toobad aqbalay thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hadaa ثم كبعد مركا اجتباه الله ايا دورتي اي اصطفاه الهي با دورته سو دويي او هنونيي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وكتواد اقبلي وهدى وانا هنونيي الله سبحانه وتعالى با جدك توسن كردي وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى كبعد مركا الله سبحانه وتعالى waxa uu yiri markii inta dhacday ayaa waxa lagu yiri aadam iyo xaawo marka ihbida qulna bida minha jami'a ba'dukum li ba'din adu qala ihbida minha jami'a marka hore waxaan u soo bandnay qulna ihbidu oo jam'a marka hadda aadam iyo xaawo la hadlaya waayo marka hore oo dhan waxa lagu soo waday damiirka tathniyada fa akala ayaa la soo yiri marka aadam iyo xawaa hadda lala hadlaya oo la yiri ihbida hoobta minha jamiican ba'dukum li ba'din adu ay duriyadiina ayaa cadow isku awey duriyadiina ayaa qaarba qaarka kale cadow u yahay aadam iyo xawa maaha wax cadaawadu dhex taala ee ama waa aadam iyo xawa isla socda iyo ibliis ama waa duriyada aadam ka farcami doonta sida haddaba cadowga la isuuyo inta la isku dhamaynayo ba'dukum li ba'din adu kabacdi ba ilaahay waxa uu inoo cadeeyay masiirka iyo aakhirka waxa la noqonayo iyo qof walba waxa laga rabo fa imma ya'tiyannakum minni huda hadii hanuun xaggayga ka socdo idii yimaado ay ar-rusul wal anbiya wal kutub hadii la idii soo dejiyo oo idii yimaadaan faman ittaba'a hudaya qofkii hanuunkayga raaca falaa yadillu walaa yashqa falaa yadillu ma dhumayo
وحير عبد الله بن عباس أي في الدنيا لا يضل في الدنيا الدنيا مرهم أيو وفاسق إيو ضلال إيو قال نما إيو دل كل عميو ولا يشقى أي في الآخرة آخرنا النار قري ميو وأهل النار نقون ميو مركا قفك أدونك روما هي آخرنا نار قلا لكن قفك هنونك يقرعه مرهم أيو أدونك وتوصنانيا وجدك توصنبو كتاقنانيا اللي كتابك يسنيه كدقينياي إيا طريقي أنبياء ولا يشقى آخرنا الشق من نقونيو أيان درناه ونار قلا من نقونيو أير الله سبحانه وتعالى فلا يدل ولا يشقى ما أيان درنا من نقونيو أير وقفك الراعي هنونكيغا الله وحي رقيبتي كلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري قفكي ذكري كجنسده والدين كي كجنسده وأن راعٍ أو إبليس يا شيطان راعه فإن له معيشة ضنكا أدونك في الدنيا وحوليها نولل عريرية ضنكا الضنك وعريري جوا نولل عريرية قلبي جيبه حكدريم يا ضيقدي عريري ولول دباتو حولك استو هايستو عريري بكنولي نعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آخرنا ونحشره يوم القيامة أعمى آخرنا وحا لكينيا إساقو إن دلاء ودمأ أيا لكينيا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سؤال بإلهي ويدينيا إلهي ومحا إيسو كل مصي أنيقو إن دلاء أدونك مركان شوغي إن دان قبي بنان كيغان أردي محاجرة سان محيط لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلهي بأو جوابي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك سداس أوكالي أي أتتك آياتنا آياتها يكوي مادين أي وحوية وكما تدين تدان قفل بوحي وشقيستي أي الغو أبا المري آياتها إلهي مركي كوي مادين وآياتها يا حديث يا الدين تلوغد الأخريي واد إسكا إن ترتي واد كدقاقدي waad iska dhagatirtay waad iska ilowday waad ka dhaqaaqday wakadhalika alyawma tunsa maanta adna lagu ilaawo laga tagay marka tunsa halkan waxa laga wadaa saasa lagaaga tagay ku jir ciqaabta in dhalaantaas adna maanta lagu soo xashiriyay waayo adduunka markaad joogtay ayaad xaq ka indhalacayd indhahan oo banaanka aad ku marayso waxba tarimayso sababtoo mar hadaad indhihii qalbiga laadahay oo aadan diinta ilaahay u hoggaansamaynin indhahan aragtidaad geedaha kaga leexanaysid waxba ku tarimayso aakhiro waxa lagu arkayaa waa nuurkii cilmiga iyo diinta iyo dhikriga ilaahay ee indhaan lahaa fiiqan oo wax walba ku arkayo adduunka aakhiro ma shaqaynayso wakadhalika alyawma tunsa wakadhalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaati rabbih wala cadaabu alaakhirati ashaddu wa abqa qof alla qofkii aayadaha ilaahay ku gaalooba oo waxa weeye aayadaha ilaahay u hoggaansami waaya oo dariiqa raaci waayana saasaa lagu abaalmarinayaa idan waxa weeye qof walba oo muslima waxaa la rabaa marka in uu fiiriyo maxaa kaa horeeya haddaad aayadihii ilaahay oo diintii ilaahay oo hortaada taalla aad ka dhaqaaqdidna hadda waxaad ogaataa inaa waxa weeye aakhiro maalin adag ay dambayso oo aad shalaayi doontid oo waxa weeye qof walbow maanta intaad adduunka joogtid isxisaabi oo waxa weeye naftaada u baq aakhiraa daran aakhiraa loo socdaa waana la isxisaabinayaa qof walbana wuxuu shaqaystay ayaa laga abaalmarinayaa in khayran fa khayr wa in sharran fa shar marka aayadahana fi suurati Taaha intaas ayuu Allah ku keenay waxa inoo dhiman insha Allah tabaaraka taala waan u gudbi doonaa oo darsiga lixaad uu noqon doonaa waxa way fi suurati Saad oo aan ku soo khatimayno aayaadkii fi khalqi aadam aynu kaga hadlaynay insha Allah tabaaraka taala walhamdulillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin
لله. يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي. يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد. ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد.